Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hermanos y hermanas, bienvenidos a otro video. Marka video kale kusoo dhawaada. Maanta waxaa baranaynaa aan warran baran grammatica basica ama basic grammar. Waa kusii socono objectives ama objetivos de hoy. Maanta ujeedada aan leenahay waa kana, intaana xooga saarayna verbos básicos, frases simples, pronombres waa pronouns, positivos y negativos, preguntas básicas. Okay, waan ku socono marka verbos básicos. Marka basic verbs waxaa ku bilaabana AR verbs. Afka Isbaanishka saddex qayb oo verbs oo leeyahay. Verbka saddex loo ku dhamaana, like ama AR oo ku dhamaana ama ER ama IR. Mafahmino? Hadda AR verbs ku bilaabana oo basic oo regular waxaa ka mid ah hablar, estudiar, caminar. Hablar waa hadalka waaye, to talk. Estudiar, to study. Caminar, to walk. So waxaa noostaan pronouns yo, tú, él, nosotros, vosotros oo Spain laga isticmaalo. Yo waa aniga, tú waa adiga, él isaga, ella iyada, nosotros unuka, vosotros waxaa laga isticmaala dalka Isbaanishka oo iniga laga wadaa. Ustedesna Latin America laga isticmaala, isla iniga laga wadaa. So marka intaan meel toos ugu qeexaya jirto inta waa marka conjugation ku sameynaysid verbka ama bedelaysid waxaa isticmaali tacticadan isticmaali this tactic or AR verbs. For example, verbkan bedeli rabnaa hablar. So qaybtan dambe oo AR ka bixinay waxaa ku bedelay intaan mid ka mid ah oo as, a, amos, an. So for example waxaa dhihi rabtaa aniga hablar hadal waay, yo aniga already waa haystaa, yo aniga waay, yo aniga waxaan ku hadlaa dhihi rabtaa. Then you say yo hablo hadii AR ka bixinay oo aa u bedelay already waxaa haysataa hal sentence oo simple yo hablo. Hadda qofka ka hadli rabti qofka oo like second person, tú habl HBL soo qaado, AR ka bixi, kadib waxaan ku bedel conjugation ku bedel. Tú hablas waa kana, adiga waxaa ku hadashaa camal. Tú hablas qaybtan oo ugu dambeysa ka bixinay, kadib as gelinay. Hay él ama ella isku mid waaye, iyada iyo ama asaga waaye. Él waa asaga, ella waa iyada. Kadib hal conjugation ay leeyihiin kan la ku bedelay. So hablar soo qaado, hablarta qaybtan dambe ka bixi, AR ka bixi, kadib waxaa ku bedelay kan él habla, iyada waxay ku hadashaa ama way hadashaa. Nosotros anaga waaye, nosotros. Okay, hadda conjugation ku sameynaysid AR ka bixi normal, then waxaa dhihi nosotros hablamos. Unuku waa waxaa ku hadalnaa, So ellos iyaga, hadda meeshan Isbaanishka oo Latin America isticmaalona, ellos iyaka, ellos ama ellas ama ustedes iyaga ama iyaga oo general ama iyaga oo naaga ellas waaye. Ustedesna waxaa waaye ininka. So kulligood maxaa hal conjugation ka sameeyeen waana kan an waaye.
so AR tan bixi then maxaa dhihi hablan, ellos hablan, ustedes hablan, ellas hablan. For example, ellos hablan español, iyaga waxay ku hadlaan Spanish. Fahmino? Waa kana marka. Asxaabi 10 verbs aan isoo qori, so 2 ama 3 ka sameynaa, wixii kale iniga comment kusoo qora ama xaafidin ku sameysta ama haba sameynina. Okay, 10 regular verbs oo AR ku dhamaadaan. 10 regular verbs. 10 verbos regulares. So maxaa ka mid ah hablar, hadda kasoo hadalnay, waa hadal. Estudiar waa barasho. Trabajar waa shaqo. Escuchar waa dhegeysi. Mirar waa eegis ama dayid ama fiirid, waa kaliyin. Caminar socod. Cantar heesid. Bailar dheelid waaye, dansiga la dheelayo. Comprar iibsasho ama wax gadasho. Practicar ficil lagu celcelinayo ama practice lagu sameynayo. Okay, waryaan mudaalin conjugation kana nii sameeyay halkan iyo kuwa kala umaleena. Marka qaabka oo yob waa soo fahanteen umaleena. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Marka hadda ka hadalno marka hablar waaye saa isku sheegnay. Marka conjugation sameynaysa AR-ta ka bixina, AR-tana cune, kadib wixii loogu talagalayaa gelinay. Yo hablo, aniga waxaan ku hadlaa. Yo hablo español, waxaan ku hadlaa Spanish. Tú hablas, markusa o as a, okay. Yo amos qaybta dambe le waaye, yani conjugationka intaan le waaye. Intaan haddaa fahanti waa bedeli kartaa. Intaan le waa xifdini must waa intaan. Okay, yo hablo español. Tú hablas Somali, adiga af Soomaaliya ku hadashaa. Ella habla inglés, iyada waxay ku hadashaa af Ingiriis. Él asaga habla, waa ku hadlaa muy él habla muy bien, si fiican u hadlaa. Nosotros hablamos árabe, unuku waxaa ku hadalnaa af Carabi. Ustedes idinka hablan alemán, waxay ku hadashiin af Jarmal ama Dutch. Wax saas ah. Okay, simple. Okay, caminar verbka la nii sameeyay oo caminar socote. Conjugation qaabka u sameynaysiin waa kana. Yo caminar waa mugtahay AR-ta ka bixi, kadib waxaa ku xareysaa conjugation waxaa ku sameynay kana ka isticmaali oo as a. Sidoo kale ella iyo él iyo ella hal conjugation ay qaataan a lewa. Famino. Then ustedes, nosotros sidoo kale halahan waay amos. Ustedes han, sidoo kale ellos, ellas y ustedes hal conjugation ay ka sameeyeen, horaan igu soo sheegay. Yo camino rápido, aniga si macna zaid waa tululiya, zaid u socdaa, orada yani tartiib ma u socdaa. Tú caminas despacio, adi macna waa gurguritaa, tartiib u socotaa. Ella camina mucho, ida zaid u socotaa, macna socodkeeda badan. Nosotros caminamos juntos, unuku macna together u socdaa, juntos waa together. Ustedes caminan lejos, macna meel dheer kasoo socotiin ama macna meel dheer kasoo socotiin, lejo meel dheer waay. Ellos caminan temprano, ikan macna aliseynimo ama waqti dheer ay socdaan oo alisey ah. Ellas iyaga oo gabdhaha ah. Ellos hadii lagu dhaho waa general oo iyaga ah ama wiilasha way u khaas noqon kartaa. Laakiin ellas markii la dhaho gabdhahay khaas u tahay. Ellas iyaga oo gabdhaha ah caminan cada día, maalin walba way socdaan. So
dul marno waa hablar waaye oo basic verb oo hablar marka lagu soo celi yo hablo, tú hablas, él ella habla. So isku daya marka intaasna waa gabagabadeyni waa wixii kale verbska kale isku daya like inagoo isticmaalayo markii oo like conjugationka inagoo isticmaalayo markaa conjugation sameynaysin waxaa isticmaaleysin personal pronoun ku fiiri kadib waxaa fiirisaa conjugationka saxda ah oo as a almost an intaas leewa shantaas leewa wax wareer ma wax ka fudud ma arkin waxan sidoo kale af Isbaanishka iyo af Soomaaliga isku mid waaye isku siyaa loo aqriyaa waxa waaye phonetic waaye wax oo dadka dhibaayo maaha oo af Ingiriis camal waxaana silent waxaana ma jiro fahmino marka intaas isku ognahay like sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Adios, bye.